magacaygu waa Hooda Xasan Yuusuf dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Maroodi Jeex ka tirsanahay waxaan soo halkan iskugu nimid inaanu baaq nabadeed u dirno beelaha walaalaha ee isku laayay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag shaqaqadaasi marar badan bay soo noqotay faa'iido badan inaguma jirto nin baa wuxuu asay u xidhay walaashii ilmo yar baa wuxuu ka baaqday dugsigii wax ku baranayay xaalad aad u xumaato calool xumo badan nagu reebtay noqotay deegaanka ku koobnaan mayso Soomaaliland oo dhan bay saamaysay waanu ka xunnahay calooliyo fara badan way nagu keentay ka meesha ku dhimanaya waa in abtigay amba waa in adeerkay dadkan wada dhashay waa deegaan meesha wada yaala waxaanu leenahay walaalayaal nabadda laga taliyo waxaanu leenahay walaalayaal nabad waarta ayaa inoo dan nabad baa ina deeqda dhamaanteeba waxaan leeyahay wargeesi xeradii waa nabad golana gurinin joogay in garaadku taliyo samaha gogosha loo xaadho oo aan geeridii hore mid kale loogu gogol reebin oo aan darafka geesaha mar kale dakhar la gaarsiinin ayaan gacalkayow ka martiyay galabtan maanta guulahayd ingiriisiyeed kuna garwaaqsada oo inaad nabad baa ina deeqdeen maadeer hayaale nabad waartan inoo rajeynaya baaqa nabadeed baan doonaynaa ilaahay beelaha walaalaha kala qaboojiyo saameyn bay dhamaanteen inagu leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Cabdixakiin Cali Cige dhalinyarta shaqo qaran ee gobolka Maroodi Jeex maanta taariikhdu tahay 13 bishii 7 2019 waxaan halkan baaq uga direynaa shaqaqooyinka iyo colaadaha ka taagan Ceelaf Weyn beelihii walaalaha ku diriray waxaan leenahay waa aafo qaran colaaduhu nabad ayaa naas lunugo leh nabad baa nolol leh nabad baa naxariis leh waxaan leenahay walaalaha colaadu ku dhex martay Ceelaf Weyn inay nabadda qaataan baan ugu baaqaynaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa inay kuwa kugu dhimatay oo ka dhimatay waa dhaxdeennii inagu baa dhaxdeennii ma garanaysaa marka wax iska dilaynaa waxaan ugu baaqaynaa inay colaadda joojiyaan oo shuruud la'aan ku joojiyaan oo nabadda qaataan qaranka iyo dadka reer Soomaaliland oo dhan hadimo iyo hagardaamo ayay ku tahay marka waxaan walaalaha ugu baaqaynaa inay nabadda xoojiyaan baaqaygu waa nabadan ku wada noolaano nabad baa horumar leh aad baad mahadsantiin warbaahinta qaranka gobolka Maroodi Jeex waxaanu baaq nabadeed oo waara aan u diranaa beelaha isku jira gobolka Sanaag ee gaar ahaan degmada Ceelaf Weyn waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay bogiina burcada isku mariyay istaaya oo nabadda u soo jeesida dadka nacabka ee dhexdiina ka shaqeynayna iska ogaada waxaanu idin soo diranaa baaq nabadeed oo markaan leenahay hadan nahay dhalaankii ama xuduudii dalka walaalayaalna maqlo oo nabadda qaata oo dalka u tiro oo dadka u tira oo dhalinyarta imika soo kacaysa ee barbaaraysa ha ka jeedin ama ha ka dhaxgelin waxbarashadooda walaalayaal istaaya midna waxaan leeyahay dawladda taagta daran uu ka harmiyo farmaajo xaaladaha amni darro ka dhex wada dalkaygan tashaday ee barakaysanay Soomaaliland waxaan leeyahay ha ku mashquulin sidii aad xaalad amni darro uga abaabul lahayd dalkaygan barakaysanay Soomaaliland ee ku mashquul qaraxyada baahsan iyo kubsiga iyo barakacyo bay hoof ka taagan dalkaad ka taliso Soomaaliya ha ku soo mashquul dalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan u salaamayaa warbaahinta iyo bulshada kalaba Soomaaliland ba iyo dhalinyarada shaqo qaranba waxaan maanta baaq nabadeed u diraynaa walaalaha dadka walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanada Sanaag gaar ahaan Ceelaf Weyn waxaanu leenahay nabadda qaata aqligu ha shaqeeyo waxa lagu jira bilihii xurmada lahaa bishii koobaad baa lagu jira bilihii xurmada lahaa dhiiguna waa xaaraanba sidiisa dhiig muslimiin la daadiyo walaalayaal waxaanu idin leenahay nabadda qaata gurdankiyo gamaala gurdayska qaar baa jugta qaar baa ku raadganay waxaan leeyahay dadka hurinaya colaadda aqligu ha shaqeeyo kuwa hubka iibinaya kuwa keenaya muxuu ahaa isdaalka bixinaya kuwa dadka isku soo ururinaya ilaahay baad hortagaysaa waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo nabadana qaata ilaa shuruud nabadda ku qaata dadkana waan u ducaynaynaa nabadda qaata walaalayaal aad baan idin salaamay kuutime sharafta leh shaqo qaran magacaygu waa Cabdixakiin Ciise Faarax waxaan halkan maanta ka dhalinyaro shaqo qaran ahaan aan baaq uga direynaa beelaha walaalaha ee ku dirirta ku dhex martay gobolka Sanaag waxaanu jeclaan lahayn in maxay haytooy ay qaataan labada beelood ee walaalaha xurguftu dhex martay nabadda cid walba waa loo diro waynu wada ognahay qoraal eebuun baa halka ka dhacay ma oran karno cidna kuma eedayn karno waa wuxuu sheeydaan ka adeegay marka waxaanu baaq ugu diri lahayn ka dhalinyaro shaqo qaran ahaan in ay nabadda qaataan maxay tahay colaadda wiilun baa inaga dhimanayaan ee wiil inoogu dhalan maayo marka waxaanu jeclaan lahayn maanta waynu ognahay hooyadii baa ooyeysa oo dadkan waynu ognahay oo aabii baa ooyaya oo walaalkii baa ooyaya oo abtigii baa ooyaya oo habriyartii baa ooyaya oo ehelkii baa ooyaya
sidaa darteed waxaanu jeclaan lahayn colaadda maanta halkaa ka ogeyn maaha uun mid ceelaf weyn iyadoo keliya iyo deegaanka sanaag oo keliya saameyn ku leh waa mid qarankao dhan dhibaato ku ah waa mid cid walba oo qaranka somalilan iyo cid walba oo deegaanada somalilan degan oo ku noole ay iyo geeska afrikaba ay nabadaasi ay u tahay horumar iyo bashbashyo barwaaqo waxaanu jeclaan lahayn ka dhalinyaro shaqo qaraan weliba waxaan si gaar ah ugu sii baaqayaa gobolada bariga dhalinyarada naga joogta maadaama anagu aan ahayn 6 gobol ee jamhuuriyadda somalilan baanu ka koobnay haddana dhalinyarada shaqo qaranahay gobolada bariga siiba laascaanood iyo gobolka sool iyo togdheer iyo sanaag waxaan u soo jeedin lahaa dhalinyarada halkaa joogta shaqo qaran in iyaguna wixii maskax iyo wixii muruq iyo wixii talaaba ay mar walba halkaa isla garab taagaan ay baaq ka soo saaraan ay mar walba wixii nabad ku dhalanayso ay diyaar iyaguna u noqdaan maadaama aan nahay cududii koowaad ee qaranka maadaama aan nahay dhalinyaradii dalka maadaama aan nahay kuwa horumarkoodu ku xidhan yahay nabadda maasha allah kulli intii aan ka dhalinyaro ahaan jirnay anagu shaqo qaran dadka ugu weyni maanta waa 30 jir waa dad maanta jaamacada ka baxay waxaan wax ku baranay oo aan barwaaqada ku gaadhno nabadda ku gaadhnay waa nabadun baa marka waxaan jeclaan lahaa in mar walba iyaguna ay nabadda xoojiyaan insha Allah waxaan rajeynayaa in badan bay wax soo noqnoqdeen maanta kulanka ama maxay tahay baaqa xukuumadda iyo odayaal dhaqameedka iyo cid walba oo Soomaaliland danaynaysa ay maanta u dirayso iyo dadka meesha tagayba insha Allah waxaan jeclaan lahaa inuu Ilaahay ka dhigo kii ugu dambeeyay nabad waarta halka lagu soo in lahaa assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Maroodijeex hawlwadeenada gobolka warbaahinta dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa kaliya laaba dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Maroodijeex oo halkan maanta dareenkoodii wadaniyadeed ku muujiyay iyo inay ka xun yihiin dhibaatada ka dhacday runtii dalkooda gaar ahaan gobolka Sanaag runtii aad iyo aad baa ugu mahadsantiin dareenkiina iyo runtii wadaniyada aad muujiseen waan idinka mahadnaqayaa reer Sanaag ama reer ceelaf weyn horta marka hore way ceeboobeen Soomaalilandna way ceebeeyeen runtii waxaan dhaqan inoo ahayn oo dalkeena aan ka jirin dad ehela oo intaas soo jeer isweeraray oo isdhigtalaalay oo isdhalay oo inan iyo abtigii iyo seedigii iyo runtii inabtigiya waa dhaqan aad u xun cadawga Soomaalilandna way ka farxiyeen reer Soomaalilandna runtii way ka naxiyeen waxaan leeyahay reer Sanaagow waad ceebowdeen nolol idiin hadhay ma jirto magac xumo idiin hadhay ma jirto magacii Soomaaliland ee runtii nabadda iyo horumarka ku suntanaana waxa weeyaan baal baad ka madoobayseen baalkii bari ayaad ka madoobayseen runtii Soomaaliland waxay ku suntantahay horumar iyo nabad adduunyada inagu majeerato runtii nimcada Ilaahayna siiyay quruxdaan aynu ku gaadhnay baaqa halkan aan uga diray reer Sanaag waxa weeyaan dad walaalaabaatii maanta ceeb adduunyo iyo mid aakhiro midna idin ma dhina aakhirana waxba uma yaalaan inta ka shaqaynaysa ee shilinka ku bixinaysa iyo inta niyadda ka taageeraysa dhammaantood way ku cadaab mudanayaan sharaf adduunyana way idinka dhimatay nin waliba inanku abtiga u ahaa iyo seedigii iyo inabtigii buu dilay marka aakhirada adduunyo midna waxba idin ma yaalaan istaba qabateeya oo ummadda inta hadhay u tura cid haddii runtii waxa Soomaaliland dulqaadkii uu ka soo dhamaaday waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aan buu qaatay oo idinkii ogaa arrintii lagu soo rogay amarka degdega ah ee runtii dadka sida khaldan looga faa'iideystay maanta waynaga aayaheedii aragnay dib damana xukuumaddu ugu dul qaadan mayso dadka nabadgelyo darrada dalka ka wada iyagana waxaan ugu baaqayaa inay aakhiradooda iyo adduunyadooda u tudhaan dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Maroodijeexna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wadineedda runtii iyo qiimaha leh ee ay uga gilgisheen taariikh xumada taala gobolka Sanaag aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh